السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كتحناها برشادة ويندوز 10 مانتا عشر كان وحان كو ايغينا سيدا لو استعمالو تابلت مود و كمبيوتر كاغا اما لابتوب كاغا اما ديفايس كاغا او ويندوز 10 كا ادو بدشيد تابلت مود اما ديسكتوب مود. هذا لابتوب كان انا هايستو ولابتوب عادية ان تاتش سكرين هاين مركا تابلت مود ماهن و ديسكتوب. marka waxaan sameyn karaa si aan tablet mode ugu bedelo oo wixii start menu ga saaran ay markaa screen-ka uga soo baxaan task bar-kana u qarsoomo. waxaan gujinayaa action center-ka halkan meesha oranaysa tablet mode ayaan gujinayaa markaa uu daaraya on uu ka dhigayaa. markuu saas sameeyo sida ujeedaanba wixii computerka start menu ku jiray ayuu isu screen-ka soo saaraya isagoo tablet mode. marka wuxuu ku haboon yahay tablet mode-ku markaad haysatid screen oo touch screen oo la taaban karo oo macnaha screen-ka dushiisa inta gacanta ku taabatid waxa rabid ka furi kadib ama midig iyo bidix marka uu wadi kadib ayuu ku haboon yahay ee kuma haboona mid aan ahayn touch screen. marka saas ayaa looga dhigaa loogu bedelaa desktop mode-ka taas tablet mode. marka haddaan ku noqdo meeshii action center-ka aan haddana gujiyo markaas wuxuu isu bedelayaa desktop mode. meesha kale oo setting-ka laga bedelo oo haddaa rabtid mar walba computerka login samaysid inuu tablet mode ku noqdo meeshuu desktop mode ka yahay waxaad gujinaysaa start, waxaad tegaysaa settings, waxaad gujinaysaa system markaa gujisid waxaa gujinaya tablet mode. meeshaan oranaysa when sign in waxaad u bedeli kartaa tablet mode. markaad computerka geshidba isla markiiba tablet mode ayuu ahaanayaa by default ama desktop mode ama waxaa oranaysaa use appropriate mode oo markaas hardware-kaaga wuxuu yahay isu bedelaysa oo tablet ayaa mar walba desktop mode ka dhigi kartaa mid desktop ah oo laptop caadiya baa tablet mode ka dhigi kartaa. haddaa kan u dhaaftidna markaas Windows-ka ayaa wuxuu yahay device-ka go-aanka gaaraysa oo ama tablet mode ka dhigaysa ama desktop mode ka dhigaysa. meeshaan oranaysa when device automatically switches a tablet mode on or off maxaad samaynaysaa markuu si automatic ah ama maxaan sameeyaa si automatic ah markuu computerka isugu bedelo tablet mode ama desktop mode. waxaad haysataa saddex option inaad tirahdid don't ask me and don't switch haba bedelin oo si automatic haba bedelin oo kan wuxuu yahay uun ha ahaado and always ask before switching mar walba weydii intaadan bedelin ka hor. marka mar walba uu desktop isu bedelayo ama se uu tablet mode isu bedelayo desktop mode ama tablet mode wuu ku weydiinayaa. option kale waxa weeye don't ask me always switch ma ku weydiinayo markaas isaga ayaa isbedelaya mana ku weydiinayo. meeshaan oranaysa hide app icons on the taskbar in a tablet mode. markuu computerka tablet mode yahay waxaan icon-adan halkan saaran oo taskbar ka saaran way qarsoomayaan. hadduu on yahay waaye uu daaran yahay, hadduu off yahana way soo baxayaan way joogayaan. sidoo kale waxaad samayn kartaa taskbarka laftigiisa ayaad qarin kartaa hadduu tablet mode markuu yahay. hadduu macnaha shidan yahay oo on yahay wuu qarsoomayaa. hadduusan shidnayn uu off yahana markaas taskbarka ma qarsoomayo. marka si aan tan u aragno haddaan kaa damiyo oo aan tablet mode ka dhigo marka taskbarki wuu qariyay uu kaa qarsoomayo. haddaan ku noqdo haddaan sidii hore ka dhigo marka aan off ka dhigo aan kan damiyo sida idiin muuqato kan markaan damiyo taskbarkii weli wuu ii muuqdaa laakiin wixii icons saarnaa way qarsoomeen. haddaan labadaba damiyana marka iconadiina waa ii muuqdaana waan arkaa ii saarnaa taskbarkiina waa ii muuqdaa wixii ii saarnaa. marka saas labadaas shaqadaas ayay qabtaan.
kanna markuu daaran yahay wuxuu qariyaa applicationska saaran kanna wuxuu qariyaa markuu daaran yahay taskbarka laftigiisa waka haddaan kan daaro taskbarka ayuu qarinayaa haddaan kan daarana applicationka ayuu qarinayaa haddaan labadaba daarana applicationka iyo taskbarka labadaba way qarsoomayaan waxaa kaloo idin tusayaa markuu external monitor uu ku xiran yahay laptopka awood uma yeelinaysid inaad tablet mode u bedeshid sababtoo ah monitor weyna ku xiran marka hadda monitoran ku xiray laptopka haddaan ku noqdo meeshaan hore oo tablet mode aan ka bedelayay sida idin muuqata disable ka dhigay wuu curyaamiyay marka awood uma yeelanaysid inaad bedeshid sababtoo ana waa monitorka banaanka oo externalka oo ku xiran daraadiis marka ma noqon karo tablet mode laptopki halkaasaan ku joojinayaa videoga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.